السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضبضة ورك هرسيد ميديا ساكايني حيثنا وحاقوا وين بعد الصومالية وافدو بوغيسة مركب لقلي هاي دالك باكستان. دولة فرنسيسكا وكاد شيء كوبي تبنبر على البداية هواي عيدمين دو قعنتا كليين كندا وشكتين بلارين سهولقاك اللو قجر لدقالك بر على البداية حيبها الصومالية. hogaamiyaha mucaaradka Sheekh Xasan Daahir Aweys oo sheegay inaanu la fariisan doonin madaxweynaha dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. dawladda Botswana oo dib u celisay qaxooti Soomaaliyeed oo isku dayay inay dalkeeda soo galaan. wafdiga socda hay'adda gargaarka oo booqasho ku jooga gobolka Galguduud oo kulamano la qaatay dadka deegaanka. xaaladda ammaan ee magaalada Beledweyne oo maanta deegaan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xalay si weyn looga dareemay magaaladaasi. gobolka Al-Shabaab oo howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Baydhabo ku soo qabqabtay maandooriyaal khamrigu ka mid yahay. qodobada dhanka caalamkan waxa ka mid ah Taliban oo qoorta ka jartay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dawladda iyo madaxweynaha Nepal oo amray in dib xilkiisa lagu soo celiyo taliyihii ciidanka ee ra'iisul wasaaraha uu xilkiisa ka qaaday. intaasi waxa aan qodobada wararka ugu darka roon goordhow iyagoo fisan ayaad maqli doontaan. shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa hormuudka isgaarsiinta dalkeena waxaana ay ka qayb qaadataa adeegyada guud ee bulshada. waa 4 bisha May sanada 2009 warkiyo fidsan. hogaamiyaha mucaaradka ee dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Xasan Daahir Aweys oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay xiriirkiisa dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo inuu la hadli doono madaxweynaha dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya. faahfaahinta warkani waxaa Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar. gudoomiyaha isbahaysiga dib u horeynta garabka asmara Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu tilmaamay arrimaha Soomaaliya ee xalwirida inay kala hadli doonaan beesha caalamka kaliya. Xasan Daahir ayaa waxa uu sheegay inaysan wax wada hadal aysan la geli doonin dawladda kumeel gaarka waxaana tilmaamay in ku dhiisa oo la fariisan doonin madaxweynaha dawladda kumeel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha sare ee sida aadka kaga soo horjeeda dawladda kumeel gaarka oo madaxweynaha ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. labadan hogaamiye ayaa waxaa lagu xasuustaa xilligii ay ku mideysnaayeen midowga maxkamadaha islaamiga oo 2000 ka arriminayay gobolada koonfureed ee Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Daahir ayaa muddo waxay ahaayeen si ay isugu dhow laakiin waxay ku kala guureen magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea ka gadaal markii Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo hogaaminayo oo ka tirsan isbahaysiga lagu aasaasay waddanka Eritrea ay wada hadallo la galeen dawladdii hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Abdullaahi Yuusuf. si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa waxa uu ku soo degmaya xilli in badan oo Soomaaliyeed ay filayeen Shariif Sheekh Ahmed iyo weliba Xasan Daahir ay wada kulmi doonaan. Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar, Warshad Media, Muqdisho. dawladda dalka Botswana ayaa u diiday inay dalkeeda soo galaan qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo cararay dalka Koonfur Afrika. qaxootigaasi waxaa tiradooda lagu sheegay inay kor u dhaafayso 100 kuwaasi oo ka cararay xeeyo qaxooti oo ku yaala dalka Koonfur Afrika. waxaana ay wax qaxeen kadib markii ay dalkaasi ku soo xoogeysteen weerarada midab kala sooca sanadkii la soo dhaafay. Botswana ayaa diiday dadkaasi inay dalkeeda ku soo dhaweyso waxaana ay 11 maalmood kadib ay markaasi oo ay xirnaayeen ay dib ugu celeysay dhinaca ay ka yimaadeen Koonfur Afrika. mid ka mid ah dadkaasi qaxootiga ah waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay dadaal u gashay in laga soo daayo xabsiga ay ku xirnaayeen ee dalka Botswana. haatan qaxootigaasi waxay dib ugu noqdeen xeryaha qaxootiga ee dalka Koonfur Afrika. Soomaali badan ayaa lala beegsaday weeraro ay soo qaadeen burcad ka tirsan
South African madow ah. Soomaali badan oo ganacsato ah ayaa dalka Koonfur Afrika lagu dilay kadib markii lagu weeraray goobahoodii ganacsi. xaaladda ammaan ee magaalada Beledweyne ayaa lagu waramayaa inay saaka degan tahay iyadoo laakiin si xalito magaaladaasi si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayeen maleeshiya iska soo horjeeda oo gudaha magaalada ku wada sugan. Cabdicasiis Barrow ayaa faahfaahinta warkani Beledweyne ka soo diray. waxaa degan xaaladda guud ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo shay baarlamaannimadii weerar kooban oo ka dhacay agagaarka boontada liiqliiqata ee magaalada Beledweyne halkaas oo fariisin ku hayeen ciidamada ammaanka ee magaalada. waxaa xalayta gudaha magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq xidhan oo aad u fara badan maadaama ciidamo xoogan oo ka tirsan maamulka maxkamadaha islaamiga xalay ay ku waafariisteen gudaha magaalada. sardaydaha xalay ayaa magaalada laga maqlayay rasaas kooban oo ka dhacaysa oo aan ogeyn cidda ridaysa iyo weliba jahada loo ridayo intaba. shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa walaac ka muujinaya waxay shalay ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. ma jiraan wax hadala oo ilaa iminka ka soo baxay maamulka maxkamadaha islaamiga oo ku aadan weerarkii shalay lagu soo qaaday fariisinka ay ku leeyihiin ciidamadooda agagaarka boontada liiqliiqato ee magaalada Beledweyne. si kastaba ha ahaatee arrimahan oo dhan ayaa imaanaya xilli maamulka maxkamadaha islaamiga oo rajo nabadeed ka muujiyey xaaladaha ammaan ee magaalada Beledweyne ka jira islamarkaana uu sheegay inay wax ka qabanayaan ammaanka sii xumaanaya ee magaalada. Cabdicasiis Barrow, Horseed Media, Beledweyne. wafdi ka socda hay'adaha gargaarka ayaa booqasho waxay ku joogaan goobo ka mid ah gobolka Galguduud gaar ahaan degmada Gurceel iyadoo la sheegay in saaka ay u kicitimeen dhinaca degmada Dhuusamareeb waxayna kulamo la qaateen dadka deegaanka. Cabdifataax Xasan Faarax ayaa warkan Dhuusamareeb ku soo diray. wafdigan oo ka kooban 7 xubnood oo dhammaantoodba Soomaali ah isla markaana ka kala socday hay'adaha WFP iyo UNICEF ayaa waxa ay muddo 2 cisho ku sugnaayeen degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galguduud. wafdiga oo weli ku sugan degmada Caabudwaaq ayaa intii ay joogeen halkaasi waxa ay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururka Ahlusunna wal Jamaaca. waxaana xilligaa dabadeed aan qadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Maxamed Cabdirasaaq oo ah mas'uul ka tirsan maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee degmada Caabudwaaq isagoo iga warramay waxa uu ahaa socdaalka wafdigan oo yimid degmadaasi xilliganayna. وقشوان وحي لتأكيد وقشوين غريبة في هذا الصور أي ينادون مرأي الأعدان أي يهوديين وصاشق من حد أنجا معناها كيين فأنجا يلقي المال بشرطة يهود الفلبين من الديوان كعودة ديوان نوحوط هذا الفيلين خوط على الفلان الناس ينادون من الأسر لما في شغل. Sheekh Maxamed Cabdirasaaq ayaa intaa ku soo daray in wafdigan intii magaalada uu ku sugnaa oo socdaal indhaydhayn ku tagay xeryaha ay ku jiraan dadka soo barakacay ee dowladka degmada Caabudwaaq iyo sidoo kale meelo kale oo ka mid tahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Caabudwaaq oo xilligan aan wax shaqo ah qaban. si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay oo wafdi noocan ah uu tago degmada Caabudwaaq waxaana dhawaan degmadaasi booqday wafdi isugu jira ajnabi iyo Soomaali kana socday hay'adda WFP. hase ahaatee wafdigan Soomaalida ah ee haatan ku sugan degmada Caabudwaaq ayaa waxa ay yihiin kuwo xiraaminaya ammaanka degmadaasi Caabudwaaq si hay'adaha samafalka uga shaqo bilaabaan maadaama ay hore uga meermeeri jireen hay'adaha samafalku inay tagaan degmadaasi sababo ammaan awgeed iyo deegaanada ku dhow. sidoo kale warar aan goordhow ka helaya degmadaasi ayaa waxay sheegayaan in wafdigan Soomaalida ah ee ka kooban 7 xubnood ay ka soo dhaqaaqaan degmadaasi Caabudwaaq iyagoo soo aaday dhinaca magaalada xarunta ah ee Dhuusamareeb si halkaasi uga sii duulaan. Cabdifataax Xasan Faarax, Horseed Media, Gurceel. dalka Canada ayaa sheegay inuu ballaarinayo howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Canada Peter Markey ayaa sheegay in dawladdiisu ay markaasi aqbashay codsi ka yimid gaashaanbuurta NATO oo ku aadan in dhowr bilood oo kale ay sii wadaan howlgalka ay kula dagaalamayaan burcadbadeeda. Mr. Markey waxa uu sheegay
in ilaa bisha June ee ciidamadoodu la socda markabka ama maraakiibta dagaal ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka burcadbadeeda. waxaa intaa ku daray in laga yaabo inay dhowr bilood oo kale ay sii wadaan howlgalkaasi. waxa uu sheegay in sababta ay burcadbadeeda la qabto haddana la sii daayo ay tahay iyagoo maraakiibta ku weeraraya meel ka baxsan soonkii sharcigu u ogolaanayay in lagu xiro burcadbadeeda. hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladda Canada ay raadinayso sharci lagu maxkamadeeyo burcadbadeeda. dhinaca kale dowladda Faransiiska ayaa waxa ay ka warbixisay 11 burcadbadeed Soomaaliya oo ay maalintii shalay ahayd ay ka qabqabatay xeebaha dalka Soomaaliya. warbixintani waxa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Nuuno. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in kooxo hubeysan oo burcadbadeed ah ay soo aadeen dhinaca markabka ciidamada Faransiiska ee jooga xeebaha Soomaaliya iyagoo ku qalday markab ganacsi. afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamada Faransiiska oo wata doonyo yaryar ay horjoogsadeen burcadbadeedaasi oo watay 3 saxiimadood. 2 saxiimadood waa ay ku weerar tagaan halka midda saddexaad ay ku siteen shidaalka iyo raashinka ayuu yiri. waxa uu sheegay in burcadbadeedaasi ay kala wareegeen hub kala duwan oo isugu jira qoryaha fudfudud iyo bambaanooyin. lama oga sida ay ciidamada Faransiisku ay ka yeeli doonaan burcadbadeedaasi ay qabqabteen. horay ciidamada Faransiiska waxay burcadbadeed ay qabqabteen ku wareejiyeen maamul goboleedka Puntland marka laga reebo 2 burcadbadeed ah oo ay nolosha ku qabteen mar ay xoog ku soo furanayeen muwaadiniin Faransiis ah oo afduub loogu haystay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolka Bari. howlgalkaasi oo uu ku dhintay nin kale oo wadanka Faransiiska u dhashay. dhinaca kale kooxo burcadbadeed Soomaaliya ayaa afduub u geystay markab laga leeyahay dalka Pakistan kaasoo la sheegay in uu ku sii jeeday dekedda magaalada Muqdisho. afhayeen u hadlay burcadbadeedaasi oo lagu magacaabo Axmed Cabdi waxa uu isagoo ku sugan degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug uu sheegay in burcadbadeedu ay qabsadeen markabka Pakistaaniga ah oo lagu magacaabo MV Al-Mizan. ganacsato Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in markabkaasi laga qafaashay meel dekedda magaalada Muqdisho u jirta qiyaastii 100 kilomitir. waxaana ay sheegeen in uu markabkaasi siday badeecado kala duwan oo isugu jira raashinka daruuriga, qalabka dhismaha iyo gawaari. xogaga ururka Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada Baydhabo ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo qabqabteen maandooriyaal uu ka mid yahay khamrigu. faafahinta warkani waxaa Baydhabo ka soo diray Cali Ilyas Cabdullaahi. ciidamada harakada Al-Shabaab ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo waxa ay ku soo qabteen goob lagu farsameeyay qamrada la farsameeyo. ciidamada howlgalkan sameeyay waxa ay xoojiyeen ammaanka goobta lagu arkay daroogada. madax ammaanka maamulka harakada Al-Shabaab gobolada Baydhabo Sheekh Xasan Deerow ayaa sheegay in ciidamadooda in muddo ay wadeen howlgal ay ku raadinayeen goobaha lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya. ciidanka ka yimaahan waa Soomaali meesha waxa lagu sameeyay waa Soomaali dhexdeeda dadkuna way is yaqaanaan oo isleeyihiin ummaduna muslimiin oo meel walba ay joogaan wixii munkar ah oo Ilaahay isna ogoleen meel walba muslim oo sheegaya oo muxuu ahay soo gudbinaya. hadda ciidanka ayaa arrinta muxuu ahay ku rogalay dabagal baa lagu sameeyay saasaan lagu soo qabsay. takala qalabka inta ku jira qalabka lagu sameeyay iyo barnaamijyada laga qaaday intii saamaynteeda kale waa mid ka doonta. waxaa xabsiga la dhigay dadka iibinaya qamradan la soo qabtay. Sheekh Xasan Deerow madaxa ammaanka wuxuu mar kale digniin u jeediyey dadka ku howlan inay ka ganacsadaan waxyaabaha maanka dooriya oo qamrada ay ugu horeyso. su-aashaasi waxaan u baaqaynaa horta Ilaahay subxaana watacaala ha u qabad keenaano, Ilaahay subxaana watacaala ka baqaano, diinteedii yaysan ku daban adduunya, diinteedii yaysan ku daban adduunya. saasaan leenahay ciidankana wuxuu diyaar u yahay in dadka noocaas ah hadday ka toobad keenaan iyo maamulka guud ahaan wuxuu diyaar u yahay hadday ka toobad keenaan in Ilaahay inuu toobadooda aqbalayo insha Allah. annagana wuxuu aqbali doono muxuu ahay haddii ka toobad keeni waayaanna waxay la kulmi doonaan awaqti mudan. Tushadka baartay maahan markii ugu horeysay ciidamada maamulka harakada Al-Shabaab howlgalkan lamid ay magaalada Baydhabo ka sameeyaan isla mar ahaantaana ay ku soo qabtaan goob lagu farsameynayo waxyaabaha maanka dooriya. Cali Ilyas Cabdullaahi, Horseed Media, Baydhabo.
halka warkaasi aad kala socotaan waa Horseed Media Boosaaso iyo hoygaan internetka ku leenahay ee horseedmedia.net. abwaan suura bixiye suugaan horaatay hadba awr ayaa sida saadka iyo biyaha oo sabiga loogu dhaanshaa sirqada iyo maqashana gurada loo sansaaba sida waxaan u leeyahay isgaarsiin la saxal tiray satellite ku guud xiran ayaa soo baxdo tiri hadda seetadii jiray Soonaha Puntland iyo Soomaaliya oo idin saameeyay anigu dadweynow u sacabtuma waana shirkadda isgaarsiinta Telecom Puntland. xilliyada socdaalka ayaamaha silsilada sanad waliba kiitigay uu ka saanad wacan yahay sababteeda hadalka iyo haddaan sugo tilmaantana sadriga iyo laabtii waxaa saabka ku haya waa shirkadda isgaarsiinta telefoonada ee Telecom Puntland. haatana warkii dibadda dagaalyahaniinta Taliban ayaa waxaa lagu soo warramay inay qudha ka jareen laba sarkaal oo ka tirsan dawladda Pakistan dooxada Swat ee ku taala waqooyi galbeed ee gobolka Malakand ee xadka la wadaaga dalka Afghanistan iyagoo argoos ahaan u fuliyay dilkaasi kadib markii laba taliye oo iyaga ka mid ah looga dilay dagaaladii 3 maalmood ka socday magaalada Bunar sida laga soo xiganayo booliiska dalkaasi. warbixintan oo ah in labada nin madaxa laga jaray ayaa timid kadib markii xukuumadda maalintii Axad ahayd ay ku baaqday in ay hubka dhigaan dagaalyahaniinta Taliban. dawladda dalka Pakistan ayaa sheegtay in la sameeyay maxkamad dadka ku fulinaysa shariicada Islaamka Sabtidii taas oo ay sheegtay in ay qayb ka tahay heshiisyadii hore loola galay Taliban ee ahaa in sharciga Islaamka lagu dhaqo dooxada Swat iyo inta ku hareeraysan. madaxweynaha dalka Nepal Ram Baran Yade ayaa waxa uu amar ku bixiyay in uu xilkiisa sii joogo generaalka ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Mr. Bukanur Kawatal iyada oo maalintii shalay uu xilka ka eriyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mr. Bushma Kamal Dahal. madaxweyne Yade ayaa ku sheegay xilka qaadista generaalka Katawal inaysan dhicin ama u dhicin si dastuuriya iyadoo ra'iisul wasaaraha uu xilkiisa ka ceyriyay markii lagu helay inuu shaqaaleysiiyay saraakiil hore oo xilka laga qaaday uuna ka madax adeegay inuu ciidanka ku soo daro kooxda Moist oo hore mucaarad uga ahaan jirtay dalkaasi Nepal. maranka u dhaxeeya ama ka dhaxaloosan general Katawal iyo ra'iisul wasaaraha Bushma Kamal Dahal ayaa ka dambeeyay markii ay isku qabteen in ra'iisul wasaaruhu damcay inuu ciidanka militariga ku soo daro kumanaan ka mid ah mucaaradka Moist laakiinse uu isartaagay generaalku. mudaharaadayaal ka tirsan kooxda Moist ayaa ka dhigay dalkaasi banaanbaxyo ay ku taageerayaan ama ay ku diidan yihiin andhaha amarka ra'iisul wasaare Bushma Kamal Dahal ee xilka qaadista taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Nepal. warwixii dalka dibadda naga soo gaadhay aad kala socoteen subaxnimadan saaka ah Horseed Media Boosaaso waa naga inta ku maasantiin dhageysiga ila socodka warka iyaga ah cidii uu sogona waxay dib uga daalacan karaan page-kan internetka ku leenahay idinkoo booqan kara www.horseedmedia.net qaybaha kale ee idaacadda iyo farsamada Cabdiraxmaan Xuduufi aan ku wareejiyo